qofka muslimka dhiigiisu waa xaraam maalkiisu sidoo xaraam tawiya inaad ka qayb qaadato dilka qofka muslimka ah adigoo soo shiraya ama adigoo qoraal ku sameynaya ama adigoo qowl kaga qayb qaadanaya ama adigoo ficil ku fulinaya intuba waa xaraam waana dambi weyn cuqubada ku dhacaysa qofka qof muslima xaq darro ku dilana quraanka ilaahay uu ku sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku ku sheegay دليل آد بدن باكسو أروري ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما شنتا الريموت با إلى هوية وهي قفك قردر أدله قفك مؤمن قفك قردر أدله فجزاؤه جهنم نار جهنم الله إرادة إلى هوي كو أبال مرينية غضب على علصنا دوشو كساري نعذلنا وكتوري عذاب كلنا ودياري انت سائل هاي إسرائيل نارتانا وكوارا يا أبو الله سبحانه وتعالى إلى أي أصحاب تقاركوت كنت جن سيدا ابن عباس وكلا توبت بما لحظة قفك مسلم كايبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما على معنى الحديث قفكو نفس بوكو سجيها إيا واسع إيا راحو انت أنو ديق مسلم فرها اللقلين مر الله مركا وديق مسلم faraha saara ee uu gacanta saara oo qowl iyo ficil midun kaga qayb qaato marka sabab bisallaa tuuraya marka saacirkiyo dhulkuba ay ciriiri ku noqonayaan oo dhagar qabe ayuu noqonayaa mid godab xambaarsan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinta qiyaame marka la isu yimaado faylka u horeeya la furaya ama waxa u horeeya adoomaha la xisaabinaya waa dhiiga oo qofkii la dilay baa isa soo taagay hebel baa ay dilay ama hebeladana ay dilay bal waxay igu dileen ilaahay oo weydii arrintaasi arrin aad u adag weey waa dulmi waa xaq darro diiqad adduunyo iyo mid aakhiro iyo adduunyo la'aan iyo aakhiro la'aan ayaa qofkaasi xaaladiisu ay ku ururaysaa arrin ummadeennu ay fudaydsato weeye laakiin ayaan darro weyn oo ay eedi doonaan weeye ilaahayna addoonku inuu uga toobad keeno oo qofka muslimka aan qabyaalad lagu dilin oon kooxaysi lagu dilin oon manfaco iyo maal la doonayo lagu dilin la iska nabadgeliya addoomaha ilaahay halkaasa cuqubadaas waa cuqubadii aakhiro cuqubada adduunyaduna waxa weeye qofkan intoo la soo qabto in gacanta loo geliyo qofkan xaq darrada lagu dilay xigtadiisii waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatl innahu kaana mansuuran ilaahay baa wuxuu uhi qofka xaq darra lagu dilay xigtadiisii waxa aan siiyey awooddaana nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam kii wax dilay waa in gacanta loo geliyo la yidhaahdo haddaad doontaan waa cafii kartaan haddaad doontaan waa qisaasan kartaan haddaad doontaanna mag baa ka qaadan kartaan qofka wax dilay waa in gacanta loo geliyaa ciddii kaa la dilay ehelkiisa ahayd haddii la dambabaso oo la qariyo oo la tahriibiyana kuwa kalena way kula jiraan wallahu aclam